intaa kadib waxaan rabaa inaan hambalyeeyno dhammaanteen madaxweynaha la doortay mudane axmed maxamed islaam shacabka reer jubbaland iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan sidoo kale aan u mahadcelinno guddiga doorashada madaxa bannaan ee jubbaland murashaxiintii sida dimuqraadiyadda halka uga tartamay iyo baarlamaanka saddexaad ee jubbaland sidoo kale odayaasha dhaqanka sharafta badan ee reer jubbaland intaa kadib waxaan rabaa inaan reer jubbaland bulshada soomaaliyeed iyo caalamka xusuusiyo sooyaalka taariikhda jubbaland iyo federaalka waa doorashadii saddexaad ee jubbaland ka dhacda marka laga reebo dhismihii xilligii ku-meelgaarka ahaa ee jaamacadda waxaad wada xusuusataan in saddexda doorasho iyo xilligii ku-meelgaarka mid kasta dowladda federaalka ay dagaal adag oo qaawan ku soo qaaday jubbaland laba teeram iyo xilligii ku-meelgaarka mudane xasan sheekh ayaa madaxweyne ka ahaa waadna wada xasuusataan wixii dhacay nasiib wanaag ama nasiib darro jubbaland mar kasta oo doorasho federaal ay dhacayso mudane xasan sheekh ayay doorataa oo garab istaagtaa su-aashu waxay tahay xaggay iska qaban laadahay ma xasan sheekh baan garanaynin abaalka ay u gelaysa jubbaland waxaad wada xasuusataan maalintii doorashadu socotay ee mudane xasan sheekh uu tartanka ku jiray madaxweynihii gacanta qabtay ee codadkii ugu badnaa u keenay wuxuu ahaa mudane axmed maxamed islaam madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan rabaa inaan u soo jeediyo waxay hadda joogtaa meel laga qaban karo oo lagu xallin karo waxyaabaha ismaandhaafka ee jira waxaad og tahay in muddaxilaadkaaga ay ka dhiman tahay 15 bilood iyo wax la mida waxaa ii muuqda saaxiibbo aan aqoon aad ah u leeyahay marar horena tilmaan khalad kugu sameeyey haddana mar kale jidka kaa sii dhuminaya madaxweynaheenna waxaan ku dhihi lahaa ha qaadanin talada kuwa ku marin habaabinaya ee isir nacaybku ka buuxo waxay ku dhaheen doorashada jubbaland waa joojinaynaa waxay ku dhaheen jubbaland dagaal ayaan ka ridaynaa waxay ku dhaheen doorasho isbarbar socota ayaan jubbaland ka qabanaynaa waxay ku dhaheen reer jubbaland ayaan kala qaybinaynaa oo qabiil u kala saaraynaa waxay ku dhaheen ciidamada jubbaland ayaan kala qaybinaynaa oo dhaqaalo ku furfuraynaa kuwaasi waxay run moodeen dhalanteedka social media ay lacagta ku bixiyeen ee 24/7 baahinaya in jubbaland dagaal ka socdo in ka badan 9 isku day oo noocyo badan oo jubbaland lagu waxyeelaynayo ayay isku dayeen dowladda federaalka ahi laakiin waxay iloobeen in jubbaland ay leedahay siyaasiyiin ruugcadda ah ciidamo heegan ah shacab isku duuban hoggaan qiimo badan dhaqan midaysan oo fahmi kara sida ay u fikirayaan dadka siyaasadda ku cusub madaxweynaha la doortay mudane axmed maxamed islaam waa kii anigoo ku hadlaya magaca ummadda reer jubbaland waxaan rabaa inaan halkan hoosta ka xariiqo in reer jubbaland ay mar kasta heegan u yihiin in ay wada shaqeeyaan dowladda federaalka haddii dowladda federaalka xaggeeda ay ka iman weydo mudane madaxweyne waxaan la hadlayaa mudane xasan sheekh aqoonsiga dowladda jubbaland ma aha wax shuruud ku xidhan cid is-hortaagi kartaana ma jirto yaan lagugu khaldin waddadaas aan hore u sii soconaynin dowladda federaalka waxay ka kooban tahay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka sidaas darteed
haddaan dowlad goboleedyadu jirin dowladda federaalka ma jirayso mar haddii odayaasha dhaqanka shacabka reer Jubbaland iyo shacabka reer Jubbaland ay kalsoonida siiyeen dowladooda iyo doorashadooda ma jirto dowlad kale oo ay aqoonsi uga baahan yihiin dowladda federaalka waxaa looga baahan yahay wada shaqayn haddaad wada shaqaynta idinku joojisaanna 15 bilood ee muddaxileedkaaga ka hadhay waxaan dhihi lahaa amba caanahaygiiyo wanka cududda weyn iyo cuudkaygu igu filan maadaama xilligu kulul yahay waa soo koobaya saaxiibaduna ay igu cadaadinayaan inaan soo koobo beesha caalamka oo door muhiim ah ku leh dowladnimada Soomaaliya waxaan u soo jeedinayaa inay indhaha ku hayaan dhaqaalaha sida khaldan loo adeegsanayo ee la doonayo in lagu burburiyo amniga iyo wadajirka shacabka reer Jubbaland tusaale marka $100,000 loo dirayo saraakiil iyo askar 10 sano in ka badan furin ku jiray waa la garan karaa waxa ka dhalanaya beesha caalamka waxaan xusuusinayaa adduunku wuxuu ku kala socdaa dastuur mar haddii dastuurkii Jubbaland iyo dastuurkii federaalkuba ay qirayaan oo qeexayaan sida doorashadu u dhacayso ma jirto in Jubbaland ay sugto inta firaaq maamul uu dhacayo oo xilligeedu dhammaanayo meelaha qaarkood waxaa la yidhaahdaa Jubbaland doorashada way boobsiisay waxaan rabaa inaan xaqiijiyo sababta loo boobsiiyey inay tahay bisha November ee maanta 25 hadday 30 gaadho waxaa dhici lahaa muddaxileedka dowladdan Jubbaland sidaas darteed waxay noqotay khasab in muddadaas lagu dhammaystiro arrinta qof iyo cod ee dowladda federaalka ku riyoonayso haddii Soomaaliya qof iyo cod aadayso annagu waxba kama qabno laakiin waa hadday suuragal tahay waxaan rabaa madaxweynaha inaan idhaahdo federaalka annagu waxaan diyaar u nahay Soomaali inaan kala shaqayno wixii dan u ah wixii aan dan u ahayna aan gacanta ka qabanno ee aanan kugu sacbinin waxaan u soo jeedinayaa madaxweynaha la doortay mudane Axmed Maxamed Islaan doorashooyinka Afrika ka dhaca oo dhan waxaa ka dhashay ismaandhaaf khilaaf iyo kala aragti duwanaan sidaas darteed maadaama maanta ay soo afjarantay doorashadii ilaahayna ku qoray inaad mar saddexaad hogaamiso Jubbaland waxaan ku soo jeedinaynaa inaad gogol dhigto ismaandhaafka iyo saaxiibada iyo dadka wax tirsanaya gogoshaasi loo dhigo la isu keeno reer Jubbaland oo dhan ay ku midoobaan adigana aad noqoto oday dhiga gogol Soomaaliyeed oo ka bilaabanaysa in Puntland iyo SSC Khaatumo ay ugu horeeyaan inay gogoshaasi ay ka qayb galaan la wada hadlo kadibna loo gudbo inta kale ee siyaasiyiinta iyo saamilayda Soomaaliyeed ee kala duwan waxaan mudane madaxweyne hadalkayga ku soo ururin lahaa ilaahay ha kula garab galo annaguna garabkaagan taaganahay saaxiibadii hore inta ay sheegeen haddana golaha baarlamaanka federaalka ku matala Jubbaland ma dhici doonto haddii ciidamo lagu qaaday helikobtaro oo lagu geeyey deegaano nabad ah oo dhibaato ka jirin annaguna helikobtaraan qaadanaynaa baarlamaanka ayaan tegaynaa xukuumadda iyo dowladdana meesha ayaan ka saari doonnaa haddii alla yidhaahdo waa mahadsantihiin